بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن صاحبيال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka maxaa dunida ka dhacay maanta oo aad ku ogaan doontaan wararkii ugu waaweynaa ee maanta dhacay qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah qarax ismiidaamin ah oo maanta lagu weeraray xaflad aroos gudaha dalka Pakistan waxaad barnaamijka ku ogaan doontaan xogta weerarka iyo waxa uu salka ku hayo sidoo kale waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijka dhaqdhaqaaqyo dagaal oo maanta ka socday laga dareemayay jiidaha iyo furmaha dagaalka waqooyiga Syria xilli inta badan awoodda kooxaha mucaaradka Syria la wiiqay waxaad barnaamijka ku daawan doontaan ku ogaan doontaan wararkii ugu dambeeyay dagaalada Syria iyo howlgallada ay wadaan militariga Suuriya maamulka madaxweyne al-Sharac waxaad sidoo kale barnaamijka kaga bogan doontaan maamulka Somaliland oo faahfaahin ka bixiyay maanta safarkii dhawaan madaxweynaha maamulkaas ku tagay dalka Switzerland waxaan idin soo gudbin doonaa faahfaahinta laga bixiyay safarka madaxweyne Ciro qodobadaas ee barnaamijka maxaa dhacay maanta ku maqli doontaan aan ku bilaabo marka hore dalka Pakistan qaraxan ismiidaaminta ayaa ka dhacay deegaanka Deir Ismaaciil gobolka Khaybar kaasoo dhaca waqooyi galbeed dalka Pakistan iyadoo ismiidaamiyahan uu beegsaday xafladani arooska qaraxan ayaa geystay khasaarooyin iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxayna booliska magaaladan sheegeen in dhimashada ilaa iyo hadda gaarayso 7 qof tirintaas ka badanna ay dhaawacmeen ismiidaamiyaha ayaa galay dhismaha uu arooska ka dhacayay waxayna xogaha la helay tilmaameen in goobta xafladda arooska ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan guddiga nabadda dalkaasi Pakistan guddiyada nabadda ayaa iskugu jiray odayaal deegaanka ah iyo kuwo deegaanka fog ka yimid dhammaantood ayaana ahaa xubno gacan saar la leh dowladda fadhigeedu yahay Islamabad dalka Pakistan guddiyada nabadda ee ku sugnaa goobtani la weeraray ayaa waxay qayb ka ahaayeen dadaalada iyo qorshayaasha lagula dagaalamayo kooxaha ka howlgala deegaanada ku teedsan xuduudda uu Pakistan la wadaago dalka Afghanistan weerarkan ayaa ku soo beegmay xilli dowladda Pakistan isu diyaarinayso howlgal iyo duulaan balaaran oo ka dhan ah kooxaha ka howlgala deegaanada xuduudda ay la wadaagto Afghanistan ma jirto weli koox si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda weerarkan haddana dhinaca kale tuhanada ayaa u janjeera kooxda TTP oo ah koox ka howlgasha xadka dalalka Pakistan iyo Afghanistan markana aan aadno dhankaas iyo Syria ciidamada militariga dowladda Suuriya iyo xoogagga Kurdiyiinta ayaa maanta dhaqdhaqaaqyo u muuqday mid ay labada dhinac isugu diyaarinayaan dagaal waxa uu ka socday furmaha jiidaha hore ee dagaalka waqooyiga dalkaasi Syria ka socda tani ayaana ku soo beegmaysa xilli maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee gacan saar kala leh dowladda Mareykanka la hordhigay doorashada ah inay hub ka dhigaan balse tani oo ay diidaan Kurdiyiinta ayaa u muuqan doonta in kooxdu wajahdo dagaalo kale oo ka duwan kuwa horey loogu soo jibiyey ciidamada dowladda Syria ayaa labadii toddobaad aynu ka soo gudubnay la wareegay dhul balaaran oo ku yaala waqooyiga iyo bariga dalka Syria kadib xafiiska madaxweynaha Syria Ahmed al-Sharac kaasoo ka dhan ahaa kooxda iyo kuwa gacan saar kala leh ciidamada dowladda Suuriya ayaa jimcihii toddobaadka aynu ka soo gudubnay u soo dhawaaday magaalooyinka iyo deegaanada dhaca waqooyi bari dalka Suuriya kuwaas oo ay maamulaan kooxda Kurdiyiinta kadib imaanshihii ciidamada Syria iyo u soo dhawaanshahoodii deegaanada waqooyi bari Syria ayaa jimcihii aynu ka soo gudubnay ku dhawaaqay xabad joojin ujeedkeedu ahaa inay fursad siiyaan kooxdani Kurdiyiinta si ay isugu soo dhiibaan oo hubka u dhigaan marka laga yimaado dagaalada mucaaradka Syria iyo dowladda Ahmed al-Sharac haddana dhinaca kale dowladda Turkiga oo ah taageeraha iyo saaxiibka ugu weyn dowladda Syria ayaa howlgallada iyo xabad joojinta Syria ku dhawaaqday ku macnaysay mid ujeedkeedu yahay in jaanis la siiyo Kurdiyiinta si ay wax ugu bedelaan go'aankooda waxaana sidaas yiri wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan markana Somaliland waxaa maanta magaalada Hargeysa soo gaaray wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha maamulkaas Cabdiraxmaan Ciro safarkan uu madaxweynaha Somaliland ku tagay dalka Switzerland ayaa wuxuu kaga qayb galay kulamo iyo shirar looga hadlayay dhaqaalaha kuwaas oo ay ka soo qayb galeen diblomaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka kala socday dowladda dhowr ah kulamadan ka dhacay magaalada Davos Switzerland ayuu madaxweynaha Somaliland uga faa'iideystay inuu ku muujiyo xaq Somaliland u leedahay inay noqoto dowlad madax bannaan sidoo kale madaxweynaha Somaliland ayaa intuu shirkani socday wuxuu ka sheegay waxqabadyada Somaliland ay la timaaday muddadii 34 sano oo ay gooni isu taag ahayd inay buuxisay dhammaan shuruudaha dowladnimo sidaas darteedana ay Somaliland u qaranto in dal madax bannaan loo aqoonsado dhinaca kale wuxuu madaxweynaha Somaliland shirkani ka diray fariin ku wajahaneed mas'uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta kulankan qaybta ka ah Ciro ayaana dhammaan dalalka goobjooga ka ahaa kulankani ugu baaqay inay maalgashtaan Somaliland isagoona intaas ku daray in Somaliland tahay meel ammaan ah oo la isku halin karo